waayahay bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baa u mahadsantihiin. waxaan halkan isugu kin yeeray inaan ka hadlo dhowr qodob oo ay tahay waajib inaan ka hadlo, waayo waajib baa naga saaran wixii aan muhiim u aragno inaan ka hadlo. kow, waxaan jawaab ka bixinayaa hadallo uu yiri wasiirka gaashaandhigga ee Somaliland oo Cateeye Fariid la yiraahdo. Cateeye Fariid qodobka koowaad waxaan ku leeyahay waxaa ka hadlaysaa wax aadan xog badan ka hayn, waayo 2 bilood ka hor baan u malaynayaa meelaha inay ka soo wareegtay markii aynu xafiiskaaga isku aragnay oo lagu magacaabay dhowr casho kadib xil wareejintii baan dhowr casho kadib xil wareejintii waa inagii sheekaysanay, waa inagii dawladda xamanay, waa inagii isla qirnay inaan dad badani war ka hayn waxa socda iyo siyaabaha wax loo wado. waa inagii isla garanay ciidamada Yube la geeyay inay qalad yihiin, sababta loo geeyayna aadan garanayn, anigoo gudoomiye gobolna aanan garanayn, adiguna aadan garanayn. marka waxaan leeyahay horta wax badan oo aad ka hadlaysid waa isla ognahay labadeenu inaadan xog ka hayn. tan labaad oo aad tiri waxa weeye gudoomiyuhu shaqadiisii buu garan waayay. shaqadeydii ma garan waayin, waayo qofka shaqada garan waaya xil iskama casilo, waa iska jooga, waayo maba garanayo qof shaqadiisa aan garanayn xilka iskama casilo. marka shaqadeyda aan garanayo ayaa keentay inaan xilkii aan hayay iyo waliba Somalilandnimada laftigeediiba aan iska casilay. xilka kaliya iskama casilina, Somalilandnimadii laftigeedii way iska casilay. marka shaqadeyda waa garanayay, laakiin cidda aan shaqadeeda iyo shaqada gudoomiyeyaasha goboladaba garanayni waa Maxamed Kaahin. inkastoo uu damiin yahay oo aan waxba garan doonin ha loogu celceliyo. bal qodobka kale waxaan ka oranayaa ciidamada aad tiri waxa la xirxirayaa oo waxa la saarayaa maxkamadda gobolada bari. waxaan ka leeyahay Cateeyo, markii nimankii saraakiishii laayay la xirxiro nabadii ay ku heshiiyeen beelaha ceel afweyn kuwii burburiyay ee wax dilay markii la xirxiro, ciidamadii kuwa ka howlgalay oo ciidamadaada ahaa kuwii laayay markii kuwa maxkamadda gobolada bari ay wax ka qabato baa hadal ku yaala. laakiin inta ay kuwaasi maqan yihiin aniga inaa ereyga maxkamad soo qaadqaadaaba ceeb buu ila yahay. ereyga maxkamad baa gobolada bari ka jirta, inaa soo qaadaa waa ceeb bay ila tahay. waxa weeye arrinkaa in aad ka dhowrsatid. hal mid waa kaaga mahad celinaya oo iyada ciidamadii Somalilandnimada ka yimi oo gartay Somalilandnimada iyo iyagu inaanay wada shaqayn karayn oo maanta jooga Carmale iyo Xingalool iyo Balebusle iyo Ceel Buhiyo maanta jooga. inaad tiraad markay Somaliland yimaadaan baa la maxkamadayn doona oo halka qirtay dhulka ay hadda joogaan inaanay Somaliland ahayn, iyadoo waa kaaga mahad celinaya. waxa weeye halka dadka kale ee aan warka ahayn saaha u gartaan. waxa weeye ciidamadaasina ma aha kuwa imanaya Burco iyo Hargeysa iyo dhulka Somaliland ta kuwa imanaya ma aha. laakiin adigu inaad kala saartay oo aad tiri markay Somaliland yimaadaan baan hadii alla qadarkeeda leeyahay la maxkamadaynaya oo aad dhulka iyo Somaliland kala saartay, iyadana waa kaaga mahad celinaya. waxa jira qola iyagu ragayga oo baran ka hadlay oo inay barani macnaha abni tahay qiray. qolada waxaan leeyahay waa idinku taageersanahay inaa ku celceliseen maayaradii baran iyo laas qoray oo aad tiraadeen dhulku waa abni, waa idinka marakacaya. laakiin inta Muuse loo sheego, waayo Muuse iyo wasiirka gaashaandhigga waxay leeyihiin baran baa ciidamadaasi abni ka sameynayaan, ciidamada Yube fadhiya. marka iyada taa u sheega baran inay abni tahay, dhibaato aanay ka jirin, Puntland joogto, taliyayaasha ciidamada joogaan, lagu dhan yahay, horumar laga wado.
wadooyin ka socdaan jaamacadi ka socdaan marka iyaga inta Muuse fariinta la rabaa Muuse arrinka khilaafsan idinkana waxaan idin sheegayaa qolada maayarada baran iyo laas qoray beenbeenta ugu magacaaban Somaliland dama la xagar dagaal lagu qaaday rag baa dhintay meesha rag ku dhintay Somaliland baanu si ahaan karnaa ma jirto kuwa gacmuhu go'an yihiin sida darteed ilmaade rayaalow inta ila ogaado oo Somaliland saa wax u leeynaysa oo macnaha hadda xabaalihi ay dama la xagar yihiin oo dhaawici yaalo inaynan si ahaan karin nala garta waa garanayaa sababta u hadlaysaan waayo dawladdiiba waxay noqotay dawlad hadal dawladda hadda jirta waa dawlad hadal kuwa xirxiran dhakool iyo Muuse Coldoon iyo xoghayihii dhalinyarada garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani iyo wuxuuba waxay ku xiran yihiin hadal kuwa shaqeynayana waxay ku shaqeeyaan hadal wasiir hebel baa hebel u jawaabay wasiirka warfaafinta hadlay kii wadooyinka hadlay kii biyaha hadlay wuxuuba midna shaqadiisii ka hadli maayo wax kale ka jawaabaya marka dawladdan aan leeyahay waa dawladii hadalka kuwa xirxiranina hadal bay ku xiran yihiin kuwa shaqeynayaan hadal bay ku shaqeynayaan aniguna hadal baan ku shaqeynayay idinkuna hadda hadal baa ku shaqeynaysaan waayo intaasaynu ku soo celcelinaynay baran waa joognaa amni Caydiid baa tagay war Caydiid muxuu u tagay wallahi ciidamadii degmo kasta waa joogaan oo gobol kasta waa joogaan oo goob kasta waa joogaan intaas dawladdu ku saxanaysay marka idinkuna hadda hadalkii baa wadaan oo waa idin dareensanahay laakiin waxaan leeyahay halka kama sii shaqeyn karto oo geeri baa jirto oo dhaawac baa jira oo qabsi baa jira insha Allah dawladdeeni waa dawladda horumarka wada ee Puntland aan la shaqeysano xil intaynu hadal ku wada lahayn meeshiina waxa weeye ku soo wadnay hadda caalam tariyo liilaaf soo dhaaf libaaxi marka insha Allah xoog buu rabaa iyo in wax la iska